bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa janalka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono Hirshabelle iyo sidoo kaleba Galmudug waxa ay shaaciyeen jadwalka doorashada qaar ka tirsan kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay soo saareen halkan ayaana daawadayaal idinku soo gudbi doona warar arintaasi ku aadan siyaasiyiinta ku fadhiya 40 sano ee la soo dhaafay kuraastan ay shaaciyeen labada maamul ayaana daawadayaal halkan ku soo qaadan doona falaqeyn ayaana daawadayaal gelin doona warbixinteena ayaan idinku soo koobi doona macluumaad fara badan oo arintaasi ku aadan hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyo channelka ofran ee gambalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee farada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa shaaciyay liiska 11 kursi oo doorashadooda uu dhawaan qabanayo guddiga doorashada Galmudug wuxuu gudagalayaa shaacinta odayaasha iyo bulshada rayidka diiwaangelinta iyo tababarada guddiga xulista iyo ergada ayaa lagu yiri qoraalka lagu shaaciyay liiskan uu soo dejiyay guddiga doorashada Galmudug waa tiradii ugu badneed ee hal mar uu guddi doorasho shaaciyo tan iyo markii ay bilaabatay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 15 bishan Janaayo oo sabtidii shalayto ku beegneed waa maalinkii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda dowlad goboleedyada faray in dhammaantood ay bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee lagu go'aaminayay in doorashada lagu soo afjaro muddo 45 cisho ma jiro dowlad goboleed bilaabay doorashada markii laga reebo liiskan ay shaacisay dowlad goboleedka Galmudug kuraasta sida weyn loo sugayo doorashadooda ee liiskan ku jira waxaa ka mid ah kursiga hoob 248 oo u taagan General Saadaq John waxaana kursigan uu ka soo muuqday liiska 21 kursi ee maalmaha soo socda lagu dooranayo dowlad goboleedka Galmudug kursiga hoob 248 ayaa waxaa la rumaysnaa in uu isu soo taagi doono gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Abshir Buqaari kadib markii kursigiisa aqalka sare laga wareejiyay jufadiisa lana siiyay jufo kale si kastaba ha ahaatee waxaa hadda soo baxaysa in Abshir Buqaari aanu tartami doonin oo uu daayay taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir General Saadaq Umar Xasan Saadaq John taasi oo ka dhigaysa in uu si sahlan ugu guuleysan karo weli lama hayo musharax miisaan leh oo u taagan kursiga hoob 248 marka laga yimaado ama laga reebo Saadaq Umar Xasan Saadaq John General Saadaq Umar Xasan Saadaq John ayaa lagu xasuustaa in uu yahay sargaalkii ugu horeeyay ee soo istaagay muddo-kororsigii farmaajo kadib markii uu ciidan dul dhigay xarunta baarlamaanka taasi oo uu ku waayay kursigiisa balse ku kasbaday magac iyo sumcad weyn sidoo kale waxaa kuraasta ka mid ah kursiga hoob 47 oo haatan uu ku fadhiyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad kursigan wuxuu ka mid yahay kuraasta ugu adag ee laga warsugayo sida ay Galmudug u maareyn doonto doorashadiisa sidoo kale kursiga hoob 138 oo haatan uu ku fadhiyo xildhibaan Saciid Nuur Grish ayaa ka soo muuqday liiska kuraasta ee baayisay Galmudug siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo General Indhacade ayaa la rumaysan yahay in ay ka mid yihiin musharaxiinta kursigaasi kuraasta kale ee doorashadoodu ay adag tahay ee liiskan ku jira waxaa ka mid ah hoob 48 oo General Cabdullaahi Gaafo uu ku fadhiyo hoob 49 oo Mustafa Sheekh Cali Dhuxul uu ku fadhiyo hoob 61 oo Cabdiweli Maxamed Qanyare uu ku fadhiyo hoob 71 oo Cabdisaabir Nuur Shuuriye uu ku fadhiyo iyo hoob 89 oo Cabdi Shirac Ayaar Jecel uu ku fadhiyo liiskan kama soo muuqan kuraasta ay ku fadhiyaan Cabdiraxmaan Odowa Axmed Macalin Fiqi iyo Ubax Taaliil kuwaasi oo ka mid ah kuraasta la aaminsan yahay in maareynta doorashadooda ay ku adkaan doonto Galmudug maadaama ay wajahayaan loolan adag kuraasta la shaaciyay ayaa waxaa sidoo kale ku kala fadhiya haddii aynu dulmar ku sameeyno hoob 53 Farax Cabdi Xasan hoob 64 Sahra Umar Maalin
hoob 12 yuusuf xeele jimcaale hoob 49 mustafa sheekh cali dhuxlo hoob 96 cabdicasiis cilmi cali hoob 248 maxamed axmed abtidoon hoob 81 maryan cariif qaasim hoob 139 cabdixakiin macalin axmed hoob 25 naciime maxamed gacal hoob 55 zakariya xasan sheekh cali hoob 147 mahad maxamed salaad hoob 7 cabdullaahi faarax weheliye hoob 137 sadiiq cabdikariin xaaji ibraahim hoob 138 saciid nuur qayliye griish hoob 40 nadiifo faarax jaamac hoob 48 cabdullaahi gaafo maxamuud hoob 71 cabdisaabir nuur shuuriye hoob 89 cabdi shire jaamac ciyaar jecel hoob 51 xasan macalin maxamuud sheekh cali hoob 35 maxamed cabdulle faarax geesay iyo hoob 65 cabdiweli maxamed qanyare kuraastaas ayay shaacisay galmudug ilaa iyo hadda waxaa lagu jiraa ama la qabanqaabinaya sidii ay ku dhici lahayd doorashada kuraastaasi si lamida galmudug waxaa sidoo kale tiro kuraasta shaacisay dowlad goboleedka hirshabelle waxayna soo saartay amaro musharaxiin badan saameyn doona wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa soo saartay amar ay garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka jowhar iyo beledweyne ay uga mamnuucayso in laga soo dejiyo hub wasaaradda ayaa qoraalkan ku sheegtay in amarkani uu salka ku hayo ilaalinta xasiloonida iyo badqabka bulshada deegaanada hirshabelle si loo dardargeliyo doorasho hufan oo ku dhisan wadar ogol ayaa lagu yiri qoraalka warkan ka soo baxay wasaaradda amniga hirshabelle ayaa intaasi ku sii daray waxaan ku wargelinaynaa hay-adaha ay ku socoto warqadan ee garoomada jowhar muqdisho iyo beledweyne in laga bilaabo 15 janaayo la joojiyay in wax hub ah laga soo dejiyo garoomada diyaaradaha ee jowhar iyo beledweyne wasaaradda amniga hirshabelle ayaa ku goodisay in ay la xisaabtami doonto cid kasta oo isku dayda in ay amarkaasi jebiso wasaaraddu waxay faraysaa talisyada ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee garoomada hirshabelle in shaqadooda ay si hufan u gutaan iyagoo la shaqeynaya maareeyayaasha garoomada ayaa lagu yiri qoraalkan ay soo saartay wasaaradda amniga hirshabelle amarkan ayaa ku soo aaday saacado kooban kadib markii uu jowhar gaaray madaxweynaha maamulkaasi cali cabdullaahi xuseen cali guudlaawe lamana oga waxa sababay in amarkan ay soo saarto xukuumadda madaxweyne guudlaawe kuraasta lagu dooranayo magaalada beledweyne waxaa ka mid ah kursi la filayo in sanadkan uu u tartamo Fahad Yaasiin oo ah la taliyaha dhanka amniga ee farmaajo kaasi oo la aaminsan yahay in hub iyo ciidan uu geysan doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xildhibaanada ku fadhiya kuraasta doorashadooda la shaaciyay ee hirshabelle iyaguna haddaynu eegno guddiga hirgelinta doorashada hirshabelle ayaa shaaciyay 11 kursi oo ka mid ah golaha shacabka uu dhawaan doorashadooda ku qabanayo magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi kuraasta la shaaciyay oo kala hoob eber 5 hoob 24 hoob 33 hoob 52 hoob 70 hoob 88 hoob 97 hoob 98 hoob 106 hoob 115 iyo hoob 140 ayaa dhammaantood ah kuraasta la qorsheeyay in doorashadooda lagu qabto magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle guddiga ayaan weli shaacin wax kuraas ah oo ka mid ah 25 kursi ee la qorsheeyay in doorashadooda lagu qabto magaalada beledweyne ayada oo weli aanay caddayn haddii halkaasi doorasho ay ka dhici karto xildhibaanada hirshabelle ku matalaya 4 sano ee la soo dhaafay kuraastan waxay kaliyiin hoob 5 waxa 4 sano ee la soo dhaafay hirshabelle ugu fadhiyay kursigan maxamed caymo hoob 24 waxa 4 la soo dhaafay hirshabelle ugu fadhiyay cabdiqaadir carabo hoob 33 waxa 4 sano ee la soo dhaafay hirshabelle ugu fadhiyay yuusuf ibraahim afrax hoob 52 waxa ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay farxiye maxamuud dhaqane hoob 70 waxa ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay aadan cali xasan hoob 88 waxa ku fadhiyay dahabo suusow maxamuud hoob 97 waxa 4 sano ee la soo dhaafay hirshabelle ugu fadhiyay khadiijo maxamed deeriye hoob 98 waxa 4 sano ee la soo dhaafay hirshabelle ugu fadhiyay maxamuud maxamed jimcaale hoob 106 waxa 4 sano ee la soo dhaafay hirshabelle ugu fadhiyay miino xasan maxamed hoob 115 waxa ku fadhiyay cali maxamed cumar hoob 140 waxa ku fadhiyay cabdiqaadir cusubl cali
guddiga ayaa dhanka kale dib u dhigay shaacinta 2 kursi oo ka mid ah 13 kursi ee yaala magaalada Jowhar kuraastaas oo ay ka taagan tahay xiisad laga cabsi qabo in ay markaasi dagaalo isku rogto. 2 kursi ee dib loo dhigay ayaa kala Hoob 141 oo uu hadda ku fadhiyo wasiirkii hore ee amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Hoob 146 uu ku fadhiyo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur. guud ahaan daawadayaal waa inageynta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media aan ku leenahay YouTube-ka haddii aad daawatay like inoo saar subscribe inoo saar channelka fura gambalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.